jiray waxyaalaha qabsoon waayay inaan halkan kusoo bandhigno sanadka 2014 bisha afraad marka ugu horeysa aan soo dhamaano gudaha deegaanka degmada ka hadalno wax badan in mataqaanaa horumarka deegaanka inaan ka shaqeyno inaan ka shaqeyno waxaa ka mid ahaa xagga caafimaadka waxbarashada waddooyinka dhinaca nadaafadda intaasba waxay waxyaalihii aan ka hadalay in aynu ka qabno kafadhigaa markuu dhamaado kadib waxay in aynu markaa u gelino sidii aynu barnaamijyada uga shaqeyn lahayn waxaa barnaamijyada aynu ku horeyay sanadkii 2014 waddanka abaarihii ka jiray waddanka inaga tuulooyin badanna waxaa jiray biyo-la-aan hadiilaani ka jirtay tuulooyinkaas waxaa kamid ahaa tuulooyinka karmoo kale iyo dhaadaaq iyo meelaha aadka ay yihiin runtii biyo aada uga fogeeyeen wada ceelgaar biyaha looga dhaamiyo meeshaas dacwado badan markaan ku jiriyey hay-addii biyalaan ka sameysa seekan bay ahayd runtii wacyigelin oo qorshaheena ku jirtay in dadka lagu wacyigeliyo in ay la shaqeeyaan hay-adaha in la soo dhaweeyo barnaamijka biyadaanka iyo qolada seekan kormeerada ay ku imaanayeen sidii loogu talagalay ama qorshaheena uu ahaa ee loogu fulaan kormeer ku yimaadeen meelihii ay eegeen kadibna waxaa bilaabmay biyadaankii oo laga sameynayay meelihii ay abaar ku jireen markii biyadaankii uu dhamaaday ama biyadaankii oo socdo markaas roogayaday markii loo gudeen waxaa biyo ayaa usoo harsanaa in laga daamiyo deegaanada qolada hay'adda waa arrintaas waa kala shaqay dadka waa in wax kale loogu bedelaa يعني المادة أما هذا فيه فترة يقول مجدي بعد وحى مجد من القشير المغلق إن الله سمي ضدك إن العكس ضدك خبطت إن الله قيبيه ما ضدك ولا إن الله قيبيه ضدك الله قيبنا يحكم إذا ضدك أبونتها ضدك عن حولها مثل بادية عن إنسان ضدك معناها ضيعتها ضدك الدسية dadka in loo qaybiyo lix boqol oo qoys fayskii koowaad ee hadda qaybiyay bisha dhammaadka ee 2014 bishan koowaad ayaa waxaa la bilaabayaa bishii labaad lacagihii la qiimeeyay barnaamijkaasi tuulooyin badan waxaa jira oo aan laga sameyn lacag qaybintaas ama biyadaan dalcadaynta meelaha ay ka socoto waxaa jira tuulooyin badan oo arrintaa ka hadlay oo haddii aan annagana aan lacagta nala siin waxa dhaafaya mishkala arrintaasi xubnaha golaha deegaanka meelo ay joogaan iyo meelo ay odayaal iyo guddi joogaaneen ayaanu kala hadalnay wax badan in haddii maanta tuuladaas ay wax ka fulaaneen adigana berri ay kaa fulayaan oo leeyahay meeshaas dhulkaas oo wax ka qabsoon karaan runtii arrintaa Facebook hore oo ku guuleysanay sidii loogu talagalay ayaan barnaamij u fulay haddana waxaan rajeynaynaa bisha kan barnaamijkan hadda laga fulinayo in sidii loogu talagalay insha Allah inuu fulo taasi waa mashruuca ugu horeeyay biyadaanka iyo lacag qaybinta oo si jiddan ka wada degmada waxaa ku xigay halkan sanadkii 2014 bishii 9 markaa kula isugu imaanayay qaybta magaalada Andara gudaheeda Andara waa dowladda hoose ka jirtay laakiin maaliyadda iyo kalluumaysiga midna ma kama ahan jirin maaliyadda iyo kalluumaysigu wax badan ayay deegaanka faa'iido u tahay in cashuurtii adiga dowladda hoose ugu socoto in shaqaale ay ku shaqeeyo in markaas degmada ay ku yeelato percentage degmada ku yeelato hadda shaqaas aad u socotaa sidii loogu talagalay oo ballantahay inaan la shaqeeyno wasaaradahaas shaqada hadda
ووضعنا دقمة وحكولة برسنتي قريب برسنتي دقموينك كما أنا جري مساعدة كلميسية مالية دسيدة معناها دقموينك بحيابها كويا الله قدر هذا مركي ورئين مدة كما أنا برنامج معناها كلميسية أما مالية كسنة waxaa la ogolaaday in la siiyo degmooyinka lacagaha percentage-ka oo ay ku leeyihiin wasaaradda kalluumaysiga ama wasaaradda maaliyadda labadaba lacagaha percentage-ka oo degmooyinka ku leeyihiin innagoo markaasi qorayna maadaama horumarin tahay degmada lagu horumarinayo in aynu markaas u dejino wixii lagu qaban lahaa taasi waa mid ay degmadu leedahay hadda loo ogolaa degmooyinka lacagtaasna waxa weeye horumarinta waxaan filaynaa inaanu marba ma dejin hadda degmada wixii xareysay laakiin degmada qandala lacago badan ayay ama kalluumaysi ha noqoto ama maraada noqoto laga xereeyey taasi waxay ka mid tahay waxyaalaha horumarka 2014 aan saran karo degmada ay ka hirgaleen 2014 waxaa ka mid ah waxyaalaha sanadka noo qabsoomay dayactirka dowladda hoose ee saldhig oo iyadana ay simada Suudaan Maxamed Xasan iyo nala qaateen ay ka qayb qaateen kadibna xubnaha golaha deegaanka iyo odayaasha degmaduba arrintaasi ay runtii ku dadaaleen sidii ay ugu hirgeliyeen guryaha loo dayactiri lahaa arrintaas oo guuleysanay oo maanta waa meelaha kow saldhigii dowladda hoose laba meelood oo kow shaqooyinkii dowladda hoose ama degmada ka bilaabmaya waxaa jira mashaariic yar oo degmada ka socday muddo ilaa 2012 mashaariicdaas annagu mar walba waxaan caqabadaha oo mataqaana ka imaanaya in degmadu aan mashaariicdeeda la isku qabsan in waxa caqabadaha aan ka iman in la shaqeeyo NGO-ga la xisaabto hawsha wada si mashaariicda degmada ay ku socdaan mashaariicda kuwa hadda 2 sano socday waxa laga bilaabo hadda sida waxbarashada dadban oo kaleeto iskuulka ay ka mid yihiin ciyaalgaal iyo unoon iyo qaliga iyo hadda degma ah in dumarka wax lagu barayo 200 oo dumar ah meeshii waxaa la barayay marka horeysa sidii mataqaanaa dadkaas dumarkaas ay wax u qori lahaayeen waxna u qori lahaayeen kadibna waxay u gudbeen in la baro sida loo tolo dharkii iyo dharka loo mataqaanaa kariskiisa barnaamijka runtii dumarka waa facaya saasay taa raashin lagu siiyay waxa baraya dad ay raashin ku qaadanayaan mashruuca muddo socday wax badan oo caqabadaha ku hor isku qabsadeen anaga xalinay waxaanu xalinaynay waa mashaariicda degmadu inay mataqaana ay ka hirgalaan hadda sanadka waxaa loo ogolaaday in lagu daro shabaab iyo meesha qaanlay iyagana waxa weeye way ka shaqeynaynaa sida hore aan ugu shaqeynay si mashaariicdu u socdaan runtii innaga golo deegaan iyo maamul waynu isku xiranahay wixii ka qabsooma degmada waa wax innaga faa'iido inoo wada ah sidii hore u ballan qaadnay in degmada inagoo ujeedadeenu ay tahay degmadii inay horumarto oo dhinacii amniga dhinacii waxbarashada caafimaadka biyaha wadooyinka intaba sidii mar walba uga hadli lahayn sidii loo horumarin lahaa hadda halkan waxaa ku yaala iskuul baa ku yaala qandala Nuur Foundation iskuulka runtii waxa weeyaan hadda muddo 6 sano meelaha soo banaya qandala meelaha kaleeto way jiraan in ay qolada Nuur Foundation gacanta ku hayaan iskuulka waxaan rabnaa waxyaalaha hadda caqabadaha qandala oo hadda runtii soo noqda oo qandala aan rabno bal inaynu iskuulkani sidii guddigu uu la shaqeyn lahaa macallimiinta sidii looga warhayn lahaa sidii iskuulkani sida iskuullada kaleeto uu ugu shaqeyn lahaa arrinta iyada waxa weeye shir qolada maamulka iyo golaha deegaanka iyo guddiga waxbarashada ah ayaan insha Allah soo gelaynaa mar kaleeto oo arrimaha ka hadlayno haddana waa ku dheeraaday
waxaana barnaamijyada naas iyo barnaamijyada kaleeto oo 2014 waxaynu soo qabanay iyo wixii caqabadaha ahaa iyo 2015 sidii aynu barnaamijyada usii dardargelin lahayn una horumarin lahayn deegaanka inaynu ka hadalno hadda waxaa inoo socda oo hadda soo galay isbitaalkii oo dayactirkiisu uu socday hadda muddo adiga 7 cisho meelahaasa haddana gacanta lagu hayo sidii barnaamijyadaas oo kaleeto aynu dardargelin lahayn deegaankana aynu uga shaqayn lahayn horumarkiisa waa ka baxay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وفنما وسلامتين waxaa ka soo sheekeeyay waxqabadkii iyo sidii ay ka soo gudbinay dowladaha inuu wada soo waxaan ka hadlayaa sanadka cusub waxay noo bilowday oo inuu faraha ku haynaa cusubtaalka degmada waxqabadkiisu uu ugu horeeyo waxna ay leeyihiin waxna ay dhiman yihiin iyadana insha allahu waxaan rajaynaynaa wakti dhow inuu dhammaado wixii ka dhiman la dhameeyo. howlo badan baa inoo yaal wadooyinka nadaafadda biyaha oo kullu inaga wada diyacan oo maaragtay wax qabad raba bulshadu meelo badan oo ay leedahay oo iyadu ruuxeeda disay oo badan iyo qorshe loo dejinayo wixii ina soo galaa sida aynu ugu qabanay cusbitaalka oo aynu nafteena wax aqray insha allah ugu dadaali doonaa hawsha aynu qaban doono iyana baleenkaas dejinayna lacagta percentiga oo naga maqana wixii aynu ku qaban lahayn oo cad oo aan warwareeg lahayn inagoo golo deegaan iyo wadayaasha magaalada waxaynu dhigaynaa baleenkii aynu ku qaban lahayn oo aynu ku aadin lahayn oo qorshahaas ku fili lahaa. intii hore gudoomiyaha ka soo sheekeeyey qidsiga cusub marka inaynu sii anba qaadno oo guntiga dhiisha iskaga dhigno oo wixii aynu qaban karno iyo waxaynu ku dari karno inaynu xijino baa loo baahan yahay. waanu soonahay inagu degmada Qandala meelayaal badan baa soo maray oo iyo deegaano badan ina ka horeeyey lama oran karo meeshaasay wax ka qabteen oo maanta sida guriga kan aynu fadhino ama stationka ama cusbitaalkan aynu dayactirayno waxbay ka qabteen Qandala lama oran karo xaqooda. laakiin waxaan doonaynaa inana waynu ka tegaynaa rag kale ayna bedeli dooneen inay astaan inoo noqoto oo la yidhaahdo nimankii iyo guddigii deegaanka waagay joogeen waxaasay qabteen oo tusaale ay noqoto. sababtoo daartan hadda aynu fadhino qolkan oo maaragtay tooradii ku tadhimaaya xaaji faarax baa loo naxariistay dhisay welina way taagan tahay oo haddii alla ku royay sideedii wey wax badan kama qabanayna albaabadaynu gelinay waana ogadana waa ka qabanay maaragtay meesha biyuu geli jireen waana rajina khalfado iyo albaabadaynu gelinay laakiin dhismeedu waa taagan yahay. muddadu haatan dhisana waa la garanaya hadeer ka ahaa maaragtay jeermanka ka ah sidaas oo kaleeto marka waxaynu doonaynaa rag baynu bedeli doonaa haddii alla yeelo haddaynu noolaano laakiin astaan inay noo noqoto la yidhaahdo war guddoomiyihii iyo golida deegaanka oo waktigaa hayay maaragtay xakunka hayay waxay sameeyeen wax muuqta oo la taaban karo oo ragga dambe aynu ku daydo xataa oo lagu canaanto. waxqabadkeenu insha allahu wuxuu noqon doonaa waxayna soo galay waxaynu doonayno iyo waxaynu hanti u helaba inaynu waddanka gelino magac fiicanna kaga tagno. waa sidaas baan waxaan leeyahay kusoo gabagabaynayaa waana mahadsantahay.
انت تقول لي الاسبوع ولا تقول له عندك بالجمعه ثاني وين كده الموجي وين يجمع كده ما هي شغال على الموضوع يقول لي زي ما احنا اي وقت تعبيس بشير طالع بشير يا قدرة ما انا كبرى وجدها وجدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا الله ودي مش تقولون مرة حريري جلس عليه والله أنا جوا حريري جلس عليه وإحنا السلام يا دمان مرحبا ليجانك الدنيا بحوالك حبناها كوسنك مرحبا كل شيء من كان دم يسمع قصص waxaan leenahay alla waxaan daawadeynay maxaan ku sheegnay kusoo degmada qandala dhammaan maamulaha barashada degmada qandala waxay salaamay boqol fariidoonka quraanka xadiga ku salaamay markii hadalku waa dhamaaday anaa ahay horta looma hadlo haddii hadalkii wixii la soo qabtay iyo wixii loo baahnaa weli lama gaarin waa la soo qabtay waa laga hadlay سواء لما يستلم هذا أخذ وموضوع لما يستلم كل سبب دماغ الغرام سبب فرق يستلم حالات وعنو كقيم قوي معلوم كان قوة ولما يرى حقوق قضايا أنا وحقوق السيارة أنا وحقوق سمين الماركة أنا وذلك كان هذا واحد عامل هذا ولا صار كان غير ما متخلي لكن ما مقاد وأمانية إن كسر كل المسا أدبر وأمانية فأقول أمانية وحقا وشر وحقا وإحنا نقول خمسة دقيقة دقيقة ونقول قبعة والضفي على المالك فدحوا له نشر دقيقة بكذا المالك نحن حرصنا وحنكو أمانية وحياة والغفل ولما جي واضحة تكاد ما يقول تهرع ما لحد هذا ما يسوي تهرع حتى يحققوا شعب كل إخلاق هاي شعب كافو يعني وعلى مطوح ولا فسبين أبا وأماني أنا الدنيا دمنا غندرة جارمينك ودمي بحرينك يقول الدمنا كلياش كل أبا وأماني صارت وحقبت ووحنا ربنا إنه حلقته هذا روح ربنا إنه ولد فرق ولا فرق أما قبل ما حصل وحقف عروة بابا لكن تاريخ هذا سيد هذا وشيء غير محمود بنكم بحرير تاريخ ما هو ده لما طلع قاعد ميسر ده حقبته وحويا tii hore way dhamaatay tii hadda isku ay 2015 noqonay xigsiga ee 15 ilaa 16 inaynu qayb ilaaha ka qaadanana waa ku qasbanaa way beelo yaa midna dakhli male midna geeltaankeena waa yaryahay isku duubnaanteena iyo isku duubnaana waa yartahay shacabku iyo inagu dad isku xiranaa shacabku waa shacab raba ciidan khasba laakiin shacab degmo deegaan iyo dhalasho u diyaar ma aha inta badan waxaan rabaa inagoo dhexda mada ku xiranayna intaa naasina isku xiran midna mid maxaan kuu sheekay gaar u ahay reerka iyo wax la rabo caalada ay jirin wadaninimo iyo nasabnimo ku hadlayna inay 16 ku iibsano ku gaarno inagoo waxaan ka badan qabanay sababtoo ah inagoo qabanay markaynu qabano waxa weeye هذا المرض بدن أو دولة رهيب باجر هو أنا الدولة اللي هي كويسة واحد مودان هذا أيام بدك ونوي نلا ياسين كل كي دولة رهيب
ودولة بكحرة هذا كل قرية دولة أنا لهيني أبو ملايه مسلم لايه بعد ما ملكوها تايلها أنت لما نقول وعارة وحسوا كلا قرية دولة كل يوم نقبلها لا ده احترامنا مجد هذا كوا كان عروضه عادي قشن قالوا بقول جدي إذا قالوا بقول جدي سليم سيدا سوى الولد ما كان بقول ما تيه هنجيب عروض جدي بارو ولنا كقول إسلام الله شيء كقول خلاص يبلين هنتي إسلام الله صدق يبلين وكان ما كان الله بهذا والله أصلا كوا كان وحي الله أصلا الله أصلا وحبر الشادي هذا أو محاكو شيء والله نروح جديه هذا ينوم مو كان بينسي هذا اللي إنه كذب تبي يقول إيشنا بعد سبب معلمين كمان وذكر دمنا كله هذه أدنى قيمين واحد بكسر بحياة ماشي وواحد نجح يجي بكسر بحياة قيمة ولما هقول بكسر فائدة سنة قيمة وما أنا قيمة واحد لو أخذ أنا بطل خلينا تقول هذا والله من النوم قدرنا يصلح الموضوع شجاع في اليوم ويوم ما نقدر دينا عامل على واحد قص على تحكي لنا واحد قص على قيمة كمان حوارات حوارات سوى صوت ضمان إسقاطي واحد صوت ضمان ما نكون شيء يعني حاطط كواوي وحوارات الصومالي وري واحد صار حكي كذا ودولة بيجي جرت ولما أكين معلم يوارد اسمه المرأة معه بالنسبة للسن جرت سواء فلاني سواء تربية سواء حرجة سواء جناحية سواء حرجة هذا واحد هو بس ده ما يمكن كذا بس والله حوي دقمة تقول marka inteena hadda kusoo kordhay ma badama waa wax yar duruuftan ka kaxaysay waxa la inteena joogtay kusoo isku wada waxa ka yihiin masuuliyay waxa ka dhacay dadka masuuliyay waxa duruuf kusoo ka bilayo ka warayo waxa dhacay isku haduu isku ma baxda isla fadhi ma wada qodobka marka wada dadda ma arka ninka wada dadda ma arka waxa ku khasaysan marka ma maqlay ina la musdo waxa uu dunyada marka aad baan u amaanayaa maamulka aad iyo aad baan u amaanayaa ninka waxaa kuu sheegay haweenka gudoomiye ku-xigeenka xubnaha maxaa kuu sheegay kuweysi aad baan u amaanayaa sababtoo meesha looma dooran in hebel baa ku qoran warqad lagu qorna waxaa loo dadkan waa muxaaraam waa mas-uuliyiin kitaab bay qaadeen waa raafiya inay wax qabadkooda muujiyaan maaha la tixgeliyo qiimeeyay qabto yaqaan shacabka magaalada ku nool waxay yihiin soo degsadaan شعب يقان مسؤولين بالأسئلة يبغى يقان الشعب حقيقي مرة إنه حاجة مسكون حرامه وإن بيع سماعي وإن عائلة سماعي إنه كتاب في القاضي سماعي هذا مرة شيء قبضه أيام في كل سكان يدور هذا لما يصير ما يهرب واحد سيد كاسو حاسس لو شفنا ولي معكم شهرات يوريه أما لو أنا استدار يا واحد مسحول يسوي يدين وصور ما تدار أفهم استدار يدين وصور ما تدار إيه ليس مرك واحد وين مسؤول إلى من هاي الألوان ولا كفر يشني كمان إلى لحية كمان وقت هذا وقتل إلى وهم قاري إلى هذا براي وح أنت تسوق الكشف أو تمين إيه إنت هذا المخل أنا قلت مرك واحد من كل وريه يسقو أركتين الموضوع haddaan meel laga soo waleeysan waxa ma qabo qof markii uu xumeeyo inay isku aragtinahay beelahay markii uu meel macna go'aan gaaray inay isku aragtinahay inay beelahay ila beelahay shaqo kuma yihiin suuliye beelahay tasuul beelahay shaqo waa bees tasuul buqaye haddii khaldan daacish haddii la qalday yahuud oo xaqayni marka aad baa idin salaamaya haween baanahay haddii ummadda waa yeelana meel ay ka duulaan waxba ka dhaadhaca waalidnimada dhegeysateen isu imaatinkeena isu nimina xaqban noo amaanaya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب ما كنتي أنت سويت من الشباب يقولون وحي أقتنع بالكشف كيسي والله مغري وأقول أحسن أن تجي عنه الدلالة يهين إنكسبوا أو الحوالي طبعا يسام أن دريم الدول بكل نهاية حقيقة مكان يساوي شيء أنا وهذا مجيب على خنا
سحيما هاي حبتك عاسيه وشبابنا ومطورنا الدوك إلهي ميرك السوالة بيها وليس هل يجون جلد والله بس شيء ما لكن نوع عن حي بالمدى عن ثلاثة لكنزل وحا مركا عمو عن كرمي دولود بالمدى عن ثلاثة كشكلال وكذا وعاية حقوق هي كلمة على مطورة لكينا شباب بالكينا علاقة إليه هاي بالكينا كان ضرر ونص صومني لكن كانوا حمو شيء لاقيا بالحولينها مبهن بلغات وبلغ هذه وعمودي إذا وسوى كنت دائما جدتك وسيئين كفتحين وحكام أنا وسير كمان بطلع العقلي بلغ دون هذه وعملني إلا ما يقول يحصل بغنبا يفكر يعني وعلينا يسوق لكن هو عمقاني يقول لي تلابه لي فتبغى تركب من الوحي وقاعد فتبغى لي هذه الوحي الواحد وحقول مرينا إنه ولا جد بس شغال سنة يدك يدلونها وضبط عن ضنين وحن ديالنا مدعوينا مشينا ودورتك عشاننا حتى قالوا لك قاعد حيو وقت المسؤولين يسايروا كان صار يسايرون كانوا أبوين وحن هذا كان أنا دولة السلطان وكيل دولة استيشن ودولة كذا سكول وكيل دولة وحن ذا هو حلو الجيش وحلو كمان هو دولة هذا أن دولة يكون دولة من يوم المجد وعن يرانا كم عشان الواحد ليش كده وقت على تمام ليش ساعة كده وسافر له عند الدموع كلام يتابع زيه وعين كاس وانجلاب حين أو بدي حتى فراق بعد فور أو جميل تنقطي أو إحنا هي شيء أو بدو الحال فيه أو دولة أن متوقع أبين وعم ما يقول عبد الله يسوي لي حاجة بدو وعيش عندي نقول يحسب لي الله حاجة وعيشنا أنت كده ونقول النور ويوصلوا مدعونا وحن شيء إنه وحاول كرته برقات ساعة لبس ومرايا وحدنا ومرايا إنه كل الله ودمه وتبدأ كذا وحاول ويقف عناي بدأ سداه النور ما فريق بقول لك أنا جواب به حتى حوار بيا وقاطع تذكر وكتير مرة وحمد إذا مركي دو يجرب بدأ على الأمر وأي أوروبا على الأمر والطريق طبعا على الأمر حتى أنت على الخبر ودي ما عندي أنا لندن وذيشين إيه كان بتكلم يقول دكتور يقول هلوجي أسكت معول مختار وأنا كتبتي معلمت معول مختار وأنا كتبتي وهم أوصل من سحمات وأنا أفرسين أنا ما وقفتي على حب الجنة لكن وهم كوزوينا مدعوينا بسوينا وركيس وحبلا قاضي وسير كي بدل وهكذا نعوينا بلا قاضي هذا كيس هذا وان كذا كسر شيء بدون أول قبل ما عديه تدين بين هاي لك وهم ما يعني نيجي يهربوا حديث الله صلى لا كان جدين دول شغالين دول شغالين ما أدري نقول كل شيء كسر شغالين لعن تدين دول مصاصة حياتهم كلهم بحالهم دولة ده ودولة أنت السنة بتقطع حساب غير دولة شغالين تدخل على مسيس كيس ما جالس مقالة كانوا قبل كان ما جالس ما لا جالس تمجد حقيقي ما جالس كان مدعوينها مع السوق ولا معه فما عايز كانوا قوتوا ثم قالوا كل قوتوا وما قالوا أي نقطة دول كامل أي نقطة عايزة والدولة كانوا أبجس ودعينا واجينا السلام عليكم ورحمة الله يا أخي